السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تشرفت له وكحرا Greenways Online Academy waxaan leeyahay welcome back again aad ay farxad igu tahay inaan mar kale ka soo noqdo anigoo idin hayo cashar qiimo badan haddaba muuqaalkan maanta waxaan idinku talagalay inaan kula wadaago sheeko aad u qiimo badan sheekadaasina aad maartay aan wax badan aan maartay uga faa'iideyno haddii ay noqoto maartay dhiirigelin haddii ay noqoto haddii ay noqoto xikmad ku jirto sheekada ay noqoto sidoo kale erayo cusub oo maartay sheekada aan ka baranayno insha Allah marka muuqaalka dhamayso si aad maartay aad wax badan aad uga ogaato haddaba sheekadan ciwaankeedu waxa la yiraahdaa The Blind Girl into bracket change the blind girl gabadhii indhoolaha ahayd gabadhii indhaha aanan qabin ayaa maartay aan ka waramayna awgeeda change taasoo la timaaday isbedel la timaaday so gabadhu indhoolaha ayay ahayd kadibna isbedel ayay la timaaday so insha Allah marka aan sheekada aragno kadib ayaan marka aan fahmayna okay good there was a blind girl waxa jiray gabar indha aanan lahayn who hated herself taasoo ayada aad isku nacab purely si cad oo bayaan ah ayay nafteeda u nacbad for the fact she was blind and fact waxa la yiraahdaa sabab for the fact she was blind maxaa yeelay sababtu waxa ay ahayd oo ayada oo isku nacbaneed maxaa yeelay indhoola ayay ahayd the only person she didn't hate qofka kaliya oo aysan nacbaneen was her loving boyfriend wuxuu ahaa wiilka aadka u jecel ayada oo saaxiibka la ahaa as he was always there for her maxaa yeelay mar walbo waa uu garab istaagnaa she said that if she could only see the world waxa ay tiri gabadh indhoolaha ahayd haddii mar ay wax arki lahayd oo adduunka ay arki lahayd she would marry him waa ay guursan lahayd good one day maalmaha kamid ah someone donated a pair of eyes qof ayaa wuxuu ku deeqay laba indho ayuu ku deeqay to her ayada ayuu ku deeqay now she could see everything maadaama hadda ay wax arki karto including her boyfriend uu kamid yahay saaxiibkeedu kamid yahay oo yaani qof walba arki karto macal saaxiibkeeda arki karto her boyfriend asked her saaxiibkeed ayaa waxa uu weydiiyay now that you can see the world maadaama hadda aad maartay indhahaagu ay ku soo laabteen oo aad wax arki karto adduunka aad arki karto will you marry me ma i guursanaysaa okay the girl was shocked gabadhu waa ay naxday when she saw that her boyfriend was blind too markay aragtay saaxiibkeedu in asagana uu sidoo kale uu indhoolaha ahaa yani indho uusan lahayn and refused to marry him waa ay la diiday in ay guursato her boyfriend walked away in tears saaxiibkeedu waa uu dhaqaaqay asagoo ilmeynayo tears waa ilmo and later wrote a letter kadibna waxa uu qoray waraaqad ayuu qoray to her oo ayada u dirayo saying asagoo leh okay just take care of my eyes dear and dear waxa loo adeegsadaa qofka ku dhow oo qaaliga ku ah wuxuu yiraahday ka taxadar indhahaygu ka taxadar dear qaaliyay moral of the story maxay tahay maartay sheekadan waxa aan ka faa'iideyno good when our circumstances change marka ay duruufaheenu ay isbedelaan so does our mind miyay maskaxdeennuna isbedelaysaa some people may not be able to see the way things were before dadku qaar uma arkaan noloshoodii hore siday ahaan jirtay yani dib uma xasuustaan and may not be able to appreciate them so that kadibna yani ay shukr ula yimaadaan markii uu isbedel uu yimaaday yani ciwaankan ama sheekadan waxaan ka faa'iideynaa yani marka aan duruufihii aan hore ugu jiri jirnay aan ka baxno dib uma soo xasuusano xaaladii hore aan ku jiri jirnay waa aan ilowna maxaa yeelay mar walba qofku markuu uu duruuf adag u soo maray oo maartay duruufta uu ka baxo waxa laga rabaa in uu la yimaado in uu shukri la yimaado haddaba marka sheekadan ayaa marka waxay inoo tahay in aan yani ka baranayno qofku maartay muxuu ahaa haddii aad duruuf aad yani dadku isku keento marka aad duruufta aad ka baxdo dadkii hore aad duruufta isku jirteen in aad marnaba aadan iloobin soo marka waxaan filayaa sheekadan sheeko aad u qiimo badan inay ahayd oo aan maartay wax badan aan ka faa'iidnay insha Allah marka sheekadan oo kale haddii aad ka heshaan maartay muuqaalka like-ta ku deeqa oo maartay like gareey si ay maartay asxaab badan ay u gaarto anigana insha Allah aan u arko in ay dhiirigelin ay tahay maartay muuqaaladan sidaan oo kale aad uga hesheen si aan u soo bado insha Allah
maanta iyo maalinta xigto khayr tiro badan ayaan ku ogahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.